waa taajiradii u dhaxday 17 nin ugu yeer jugta culus. mar haddii aad u aragto guusha inay tahay dadaal iyo juhdi isku hareereynta ismuujinta shakhsiyadaada, waatan marwadii loo caleemo saaray. waa taajiradii u dhaxday 17 nin ugu yeer jugta culus. waa Kim Kardashian. waa quruxleydii ismuujisay. waxay dhalatay 1981 Oktoobar. aabaheed Robert wuxuu ahaa looyarkii OG xilligaa ka soo daayay xabsiga. Kim waxa ay ka soo agdhowaatay OG waana xilliga ay ka soo muuqdeen nigisyada, taas oo sababtay in ay isbartaan wiilkii adeerku u ahaa Michael Jackson oo magaciisa loo oran jiray TJ Jackson. qorshahaasna waxaa diyaariyey hooyadeed. bal qiyaas haddiiba hooyada qorshe ku mareegto. habeenada ka mid ah ee la wada joogay ayay kaniini siisay gabadheeda si ay waqti ugula qaadato TJ Jackson. xilligaa da'deedu waxay ahayd 14. Kim Kardashian waxay u aragtay in ay tahay fursad dahabiya iyadoo u soo hoyatay maadaama ay soo dhex gashay dad caan ah, waxayna bilowday ganacsi ku salaysan in ay iibiso dadka caanka dharkooda. qayb ka mid ah tusaale ahaan waxay booqasho ku tegi jirtay guryahooda iyadoo u kala hagaajinaysa dharkooda. kuwa ay nacaan ama ka yaraada waxay samayn jirtay waxay ku gedi jirtay eBay. muddo gaaban kadib waxay furatay dukaankeedii Dash. Kim ayaa leh waa inaad dhistid magacaaga si ay u soo raacdo magacaaga lacagta. Paris Hilton waa gabadhii soo gacan qabatay Kim Kardashian. qof walba oo caan ah waxaa soo gacan qabtay qof, balse Paris waxa ahayd gabadhii 1999 ilaa 2000 qaaday koobka quruxda, waxaana ahayd milkiilaha dharka samaysa moodalada. waxay kaloo ahayd gabadhii u ahayd gudoomiyihii shirkadii Donald Trump ee sameynaysay moodalada iyaduna. balse Kim umaysan arag waxaas wax iyada ku filan, waxayna go'aan degdeg u gaartay inay xaqiijiso waxa iyadu ay doonayso. waxayna isku caleema saartay inay noqoto boqoradii jugta. Kim waxa ay bilowday inay jisho muuqaalada jugta ah. waxa ay la jishay fanaankii caanka ahaa ee xilligaa jiray ee ka mid ahaa fanaaniinta caanka ah Ray J. shaqadaas waxay u aragtay inay tahay midda keliya ay ku gaari karto waxa ay doonayso, lacagta ay doonaysana ku qaban karto. muuqaaladii Ray J waxay ka tabacday $5 milyan xilligaas. balse Kim qof walba u arko waxa ahayd qof uu jacayl u qaadayo. balse Ray J ayaa la weydiiyey ma aamintay weligaa Kim Kardashian? wuxuu dhahay haa, waan aaminay. ma ogtahay in uu yahay ganacsigan inay adag tahay midda keliya aan qof lagu aamini karin? balse iyada haa. boqoradda waxay jamatay 50 Cent, balse waxay aaminsanayd wax walba oo lagu hamiyey inay leeyihiin caqabada u gooniya. caqabadahaas waxay ka qabsadeen 50 Cent, balse isagoo qeylinaya ayuu leeyahay waxaad u soo dharbaxday 6 qofood si aad aniga igula kulanto. bal qiyaas adiga oo sita magaca boqoradda jugta, weliba ka soo muuqday warbaahinada kala duwan sida wargeysyada, filmaanta, xayeysiimaha. waa magac kuu horseedi doona in la isku kaa dagaalo, balse adigu faa'iido uu kuu yahay. waxa u soo wada hayaamay boqoradda jugta dadka ugu magaca dheer bulshada, tusaale ahaan wariyaasha, fanaaniinta, musishinada. boqoraddii way guursatay, reer ayayna yeelatay. waxayna guursatay Damon Thomas oo ahaa musishin. muddo gaaban kadib way kala tageen. inta u dhexaysay kala tagooda ilaa 2011 waxa ay la soo kulantay Maya Milk, Justin Bieber iyo fanaaniin aad u tiro badan. dhanka kale waxaa yimid ciyaaryahankii NBA-da Chris. arooskeedan wuxuu ku bixiyey $10 milyan. wuxuu arkay inaysan meeshan ka soo socon wax isaga faa'iido waa 72 beri gudahoodna wuxuu ku saxiixay warqadii furinkeeda. waxaa la gaaray xilliga ay soo muujin lahayd xidigeedii saddexaad ay guursan lahayd. waa Kanye West. waxaa jira shakhsi ka ciyaara daaha dhabarkiisa weliba aan muuqan. waa fanaanka caanka ah Drake. heesta Kiki waxaa faallo ka bixinaya Snoop Dogg. waxaan hadda helay qofka ay tahay Kiki waa jugtaada culus, waana sababta aad u xanaaqday. Drake wuu sameeyey mar kale ereyga uu sameeyey waxaan u isticmaalanaa ereyga dhexda ku jira maadaama aanan af ahaan u dhihi karin. dhanka kale Kanye West ayaa ka jawaabaya heestii Drake, wuxuuna leeyahay fuck my wife and you're not saying nothing and you carrying it like that. Kanye West iyo Kim Kardashian waxay isguursadeen 2014 waxayna isqabeen ilaa 2021 bishii labaad. waxayna isku dhaleen 3 caruur ah. labada qof dhankooda ma xuma, balse kubadda waxaa ciyaarayay hooyadeed. waxay gacanta ku dhigtay $1 bilyan. qorshaheeda xigase muxuu yahay? sidaa iyo nabadgelyo.